tahay oo guddiyadana ka tirsanaan jiray saacad yaro culusna waa nagu soo beegatay salaadii ay haysatay marka waxaan rabnaa inaan su-aasha hore u gallo mana badnaba waxa weeyaan wasaaradda waxay qaadaa lacago dheeriya oo laga qaado shirkadaha oo aan waafaqsanayn tacriifadda ama TSA ku dhicin mabaana wada ogeyna qaarkoodna idinkaa hore u sheegay marka su-aashu waxa weeye koowaad marka ugu horeysa lacagaha qaadaan haddaad tihiin wasaaradda howlaha guud inaad marka hore tiradooda noo sheegto iyo madaxyadooda marka labaadna waxa TSA ku dhaca iyo waxaan ku dhicin inaad noo kala saarto soo dhawaad بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قدومي وما سنتهاي قدومي ياشا لبدا قدي لبدا قله يحل بانا ذا شرفت لي محوهاي كم إذا قدي كان بلعرن مالية ده عاد بانوتا محوهاي دين سلامة يا حنو ملاهين يا إنكستون محوهاي سؤالها هرلا نوسي شيئين دي haddana muxuu ahaayay sikadiisa aad noo weydiisay waxa jiray muxuu ahaayay kulan hore oo la yeelanay guddiga gaadiidka la yeelanay oo su'aashan oo kale ku timiday su'aashaasina kulay sidaan uga jawaabnay waxay ahayd inaan muxuu ahaayay lacag dakhliga qaadno laba arrimood bay ahayd lacagta dakhliga qaadnay waxa lacagta shirkadaha registrationka way diiwaan gelinta shirkadaha dhismaha taasaanu qaadnaa taasoo markaasi u qaybsan categories A iyo B iyo C u qaybsan mudday soo socotay lacagtaasi waxay ku dhacdaa totally khasnada dawladda ayay ku dhacdaa lacagay wasaaraddu qaadato maaha kharashna kama goosato wasaaradda maaliyadda waxa uu jooga wakiilba uu joogo muxuu ahaayay lacagtaasi xisaabsada khasnada dawladda ayaanay toos ugu dhacdaa wasaaraddu markii intaas samaynayso waxa jirayay oo jirana socdana kharashaad ay ku gasho muxuu ahaayay samaynta certificate-kaas iyo shaqadeedaas oo daabacadeeda shahaada muxuu ahaayay la isku halayn karo oo muxuu ahaayay meel lagu kalsoon yahay laga soo daabaco iyo hawlba markaas muxuu ahaayay ku dhaxay waxa jiray berigii hore in muxuu ahaayay lacag aan joogto ahayn 100 ilaa 200 noqon karta in muxuu ahaayay la qaadi jiray baa jirta laakiin aanu muddadii aanu nimidnay oo sanadka joogay haba yaraatee lacagtaasi lama qaadin annaga iska bixina qarashkeena arrin koostiga ka dabaqna muxuu ahaayay haba yaraatee wax la weydiiyo ay shirkadaha registrationka sameynaya ma jirto that's why aan maalintii hore maalinta waan maqalnay si official oo aan muxuu ahaayay aan u soo saarnay oo niri muxuu ahaayay wareegto qoraal ku soo saaray laakiin awaamir aan ka dhiibnay baa jiray inaan muxuu ahaayay arrintaas ku joojino oo aan u sheegay maalintii inaanu joojinayno lacagtaas aysan jirin marka laga yaabaa in si qalad loo fahmay muxuu ahaayay media oo muxuu ahaayay lacagtaas way socotaa hadday socotaa in loo fahmay laakiin micnaheedu taas ma ahayn lacagtaasi ma socoto muxuu ahaayay mana jirto midda kaliya haatee muxuu ahaayay laga qaado shirkada ayuun baa jirta waxay la socdaa agaasimihii maaliyadda oo muxuu ahaayay registrationka gacanta ku haya reportyada iyo wixii dakhli soo xirooday idayna la socodsiin doona agaasime ayaa muxuu ahaayay u magacaaban oo ayna la joogta iyada markaa dakhligu halku maray iyo waxaan qaadno iyo waxaan qaadin detailskeeda iyadan muxuu ahaayay ku wareejinaya agaasime ku soo barakaatu gudoomiyaasha labada gole ee baarlamaanka wasiirka wasaaradda howlaha guud dhamaantiin waxa waaye waad salaamantihiin waxaan ku faraxsanahay in aan maanta hor fadhino guddigii maaliyadda iyo isla xisaabtanka
wasaaradda howlaha guud sida wasiirka sheegay waxaan soo xareynaa canshuur oo aan ka qaadno oo aan dakhli ahayn dakhli saxan canshuuraadka aan dakhliga saxda ahayn ayaan ka soo xareynaa waxaan ku bixinaa registration license oo aan siinaa kambaniyada dhismaha magaalada ka jira ilaa iyo 3 category waaye 2000 aan mid ka qaadnaa eeda biyada waxaan ka qaadnaa 1500 siidan waxaa laga qaadaa 1000 lacagtaasna si toos waxay ugu dhacdaa TSA-ga dawladda markay ku dhacdo ee waxay noola imaadaan deposit-ka qof waxaa jooga ka tirsan dakliyada qof u qaabilsan wasaaradda maaliyadda ka tirsanaa jira qofkaas rasiid u soo jaro rasiidka asagoo wato iyo warqadii deposit-ka markuu noo keeno ayaan shahaado u process gareynaa waa jirtay lacagaha gacan lagu qaadi jiray zamaaniyeed mar hore laga gudbay si wasiir Bayle barigu yimaaday waxaas u dhamaadeenba lacag cadaan oo la qabtay waxaas u dambeysay marna waa jirtay wasaaradda howlaha guud sida wasiirka dhawaajiyay lacag yar oo sarfis aan qaadayna duruuf aan kaliftay oo ahayd in wasaaradda maaliyadda aan dakhli u xareeno laakiin aynan siinin wax running cost ah aan ku daabacno shahaado anaka iska bixinayna qadi wax ku daabacna anaka iska bixina shahaado waxay ahaataa shahaado QR leh oo Kenya laga dalbayo marka waa dareemi kartaa qarashaadka u baahan tahay marka wasaaradda maaliyadda dantan dakhli u xareeno aysan nasiinin waxaan anaka isku cover gareyno wasiirka markaas jooga wuxuu soo saaray warqad yar oo leeyahay ha laga qaado $100 oo loogu talagalay daabacaada iyo waxaas $100 ha xitaa 200 ma gaarsiisneen marka $100 ma qaadna hadda yani marka hore taariikhda oran ka sheekeynaya maadaama wasiir Abdisalaam markuu yimaadaan balahakiyaba intuu wasiirkan joogay xitaa lama qaadin cilmi oo la dhahay waxaan ka dhigi doonaa si official ah sida wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda arrimaha gudaha ay u qaadaan oo shirkad oo printer caadi ah ay siiyaan haloo siiyo marka wali maana processkii maana bilaabin oo ah inay shirkad la siiyo ay wax daabacdo stiil anaka gacanta ku hayna laakiin hadii dawladda hadda anaka daabacnaa ran wax fiina kama qaadna waa caqabadaha ugu weyn oo na haysta wasaaraddiinu aad loogu eedeynayo leeyahay qarashaad ay qaadaa dakhliga aan soo xareynay marka dambe kor u sii kacayay 2023 waxaan soo saarnay 200 iyo xoogaa 2022 labadii wax 180 aan soo saari jirnay oo 280 sanadkii hadda 2024 waxaan soo xareynay $310,500 hadda oo la taagan yahay from January 2025 ilaa bisha November hadda haytan aan taagan waxaan soo xareynay 400,000 aan soo xareynay sanadka soo socota waxaan rajaynaynaa inaan 500 soo xareeyno oo kaliya shahaadooyinka ah sidoo kale waxaan noo qorsheysan inaan qaadno e-permit oo ah fasaxa dhismaha iyo waxaan noo qorsheysan supervisionka inaan quality control dhismooyinka magaalada ka socda maadaama guryaha iska burburayaan inaan controlno oo ka qaadno fee adduunyada contract value dadka waa laga canshuuraa waxaa laga canshuuraa hadday jabiyaan sharciyada iyo lowskii marka waxaasoo dhan ayadan inaan qaadnaa rabnaa concept note waa noo diyaarsan yahay wasaaradda maaliyadda waxaasoo dhan waxaa ka horeysa inaan helna wasaaradda inay hesho horta system iyo waxaas ay ku qaada iyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda howlaha guud wada hadal u socdo hawshaasna waan wadnaa haddiina lagu gacan siiyana dakhliga waxaan kor u qaadi doonaa ilaa 2 milyan waa gaarsiin karnaa hadda hadaashaan sameynay assessmentigaa sameynay waa maasantiin su'aalaha qabtiina waa diyaarowna wax yar haddaan halkaa kaga noqdo macnaha anu muddadii aan joogay waxaanu ka shaqaynaynay aanu barnaamij MIS abuurno oo moogtahay wasaaraddu kaliya maaha inay qaado muxuu ahaayay shahaado kaliya laakiin waxay qaadi kartaa waxyaabo fara badan oo dhismaha ku saabsan oo ay ka mid yihiin inay injineerada ay license u samayso oo ay ka qaado oo ay ka mid tahay inay muxuu ahaayay inay muxuu ahaayay building permit bixiso oo standardizationska howlahaas muxuu ahaayay samayso supervision iyo kormeerka iyo waxyaabahaas oo dhan moogtahay wasaaraddu ay samayso marka waxaanu doonaynay moogtahay inaanu xitaa qalabka dhismaha lafteeda certification buu u baahan yahay moogtahay shirkadaha qalabka dhismaha ka shaqeeya marka howlo noocaas oo dhan baanu doonaynay inaan muxuu ahaa runtii aanu soo gelino marka aanu samayno qaab shirkadeed oo muxuu ahaay triple B oo qaada oo waxaas oo dhan samayso dee dabagal ku samayso because waa howlo baaxad loo dalka dhan in laga sameeyo loo baahan yahay marka hawshaasina qorsheegu waa nagu jiraa waa naga hakatay xogaa dib u dhac baa nooga dhacay iyadoon doonayno iswaafajin nidaam MIS oo wasaaraddu leedahay iyo wasaaradda maaliyadda inaanu isku xidhno portal ah isku xidhno kaasna World Bank aanu ka codsanay inay noo develop gareeyaan marka muxuu ahaayay systemkaasi oo wasaaradda lagu abuuro marka haddii aanu ka abuurno moogtay ku guuleysano meel fiican bay noo maraysaa miisaanadii la soo ogolaaday oo muxuu ahaayay in la develop gareeyo hadda aan moogtay ku tala jirno way
marka haddii kaasi noo hirgalo waxaan rajaynaynaa wasaaraddu in siday ayaan agaasima ayaan sheegtay inaan runtii dakhli badan aanu soo xirino uu dalka uga soo xiro wasaaradda uga soo xiro taasaanu ku dala jirnaa haddii lahayd bedel lacagta la gooyey maadaama baahideedii ay jirto maxaa iyadoo la qaadayo loo wareejin waayo maalan wasaaraddii maaliyadda maxaa loogu wareejin waayey si imkaaniyaadkii iyo fursaddii adinka aad ku heli kari lahaydeen budgetna aad wax ugu heli lahaydeen wasaaraddii maaliyaddana dakhli uga soo geli lahaa lacagta intaad goyn lahaydeen maxaa loo wareejin waayo oo maaliyaddii loogu wareejin waayey kadibna adinka baahidiina looga xallin waayo xagga iyo miisaaniyadda dhexdeeda wasiir taasaan rabay inaan su-aashii tii baa dhici weyda oo muxuu ahaa wax kasta oo miisaaniyadda gala ama dakhli ama gala muxuu ahaa treasuryga galaay inaanu soo noqon oo moogtay budgetkiina aan running costigiina xitaa muddooyinkii u dambeeyay oo dhan aan la heli jirinba moogta aanay moogtay running costigi jirin marka sababahaasaa runtii culaysidaasaa jiray welina waa socotaa laakiin markaa nidaamkan MIS iyo moogtaan ku heshiino waxaanu rajaynaynaa qaabkii systemkii daabacaadii iyo kharashaadkeedii inaan isla meel dhigno maadaama aan darosaynayn muxuu ahaa dakhli badan uu soo noqdo wasiir waa mahadsantahay adiga agaasimaada gudoomiye waa mahadsantahay adigana su-aalo yaryar aan qabaa aniga midda ugu horreysa ay tahay maalin dhaweyd markaad la kulantay guddiga gaadiidka waxaad ka hor qiratay inay jiraan lacag yar oo fee oo la qaado lana joojin doono haddana agaasimaada wuxuu sheegaya inaysan jirin lacag la qaaday oo gacan laga qaado oo muddo hore ee ugu dambeysay taas waxaan rabaa inaad iswaafajiso midda labaad waxaa waaye waxay sheegteen in shahaadooyinka qaar ay yihiin $2,000 qaar kun ay yihiin qaar ay qiimo kale leeyihiin waxaan rabnaa maxaa lagu saleeyaa ma qofka subaxii intuu soo tooso yiraahdaa fiigaasaan dadka saaraya ummadda Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo dalkan joogto oo qaarkood aysan dollarka arkinbo $2,000 laga qaadaa hadii la yiraahdo waa ku badan tahay runtii ma jiraa wax nidaam oo raacdaan oo lagu saleeyo qofka qiimaha la saarayo hadduu noqdo engineer hadduu noqdo qof kale oo gurigiisii dayactiranayo oo si kale u habeysanayo ama canshuuraha guriga la saaro oo fiiga guryaha aad saartaan waxaa soo socotaa tirahdeen oo bilaabi doontaan laysanka injineerada asaga laftigiisa fee oo doolan doonaa laakiin ma ku jirtaa oo qorshiina ma ku jiraa injineerada meeshaan waxaa iska jooga boocbooc oo aan shaqadooda aqoonin shalay madaxtooyadan gadaasheeda darawalkayga intuu parking garaysta yaan sartaana gadaal layga tusay sar ayada dhan kala jeedo oo ay u dhisantahay yaabis marka injineerada noocaas oo kale ah ma fiirinaysaan aqoontoodii iyo khibradoodii ya macnaha meedi ku jirtaa qorshaha inaad dadkaas aad shahaadooyinkoodii iyo meelahay ka kala yimaadeen iyo weliba suudaan u badan tahay inaad qabataan oo wax ka qabataan soo dhow waxaan u mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo agaasimaha waaxda maamulka maaliyadda halkan la fadhiyo oo ka soo qayb galay shirkeena waxaan dhageystay sharaxaadda wasiirku bixinayay waa wixii uu guddidii hore ee qaabilsanayd wasaaradda siiyey wasiir waxaanu kuugu yeedhnay qaybta dakhliga budgetkii baanu sameynaynay oo ka shaqaynaynay waxaana loo sheegay in wasaaraddaada ku jirto dakhli dheeraada ay qaadaan oon gelin khasnadda dowladda laakiin mar haddii wasiirka halkan ka caddeeyey inuu kharash qaadin ka baxsan lacagta gasha TSA sababa aynu sii weydiino shaqooyinkiisa kale waxa qaabilsan committee kale injineeradiisa iyo classificationkiisa iyo waxaas ma hartid shaqadeedii ma aha anaga guddi kale qaabilsan anaga lacagtaasana khusaysa lacagtina waa ka jawaab wasiirku aad u mahadsan waa mahadsan tahay ciid moogtays waafajinta hadalkayga iyo daba socday waxaan maleynaa maalintii anigu hadalkayga inaad u fiirsatay mooyaan waxaan ku yidhi saad u maqashay baan mar u maqlay baan ku yidhi samaan gara daaso laakiin anagu wax dhan qaadno haddayn jirtana waa joojin moogta waxaas markaa hore u joogsatay wax la qaad that means wax la qaaday ma jiro agaasimahaygii haddaad baraysato waxa weeye because informal bay taasi ahayd in la yidhaahdo moogtahay qofka loo samaynayo 100 ma ku dari kartaa si aad muxuu ahaayey taasi moogta wax lagu fududeeyo hawsha oo lagu muxuu ahaayey saans leeyahay wax lagu daabacayay marka taasina ma jirin oo moogtay wareegtaan waan ka soo saarayna ma jiro muxuu ahaayey meel lagu qaadana hadda way noo sheegtay ayaan inaysan jirin haba yaraateen marka taasaasan kaga jawaabaya muxuu ahaayey categorieska saan u sameynaa runtii iyada lafteeda waa sidoo jaamac sheego in kastoo hay'adda muxuu ahaayey gudiyada kale ay qaabilsan tahay laakiin categorieska waxa weeye kama hadlayno fuundi wax dhisaya
ama engineerka ma ka dhisayno oo moogtay gaar xus u dhisanaya waxaanu ka hadlaynaa shirkad dhismo samaynaysa oo inay qandaraas qaadata raba oo engineer leh oo capital leh oo muxuu ahaayey capacity leh moogtay ku tala gashay loo sameeyey inay ka shaqaysato muxuu ahaa real estate ka shaqaysato muxuu ahaayey ka qayb gasho muxuu ahaa dhismaha shirkadda noocaasi waxaan qiyaasaynaa inay capital ku filan leedahay de muxuu ahaayey institution jirana ay tahay oo muxuu ahaayey shaqayn kara ay tahay si taa loo xoojiyo waxaan isleeyahay lacagta moogtay la sameeyey inay noocan ma ay tahay reasonable ay tahay moogtay fiyada la qaaday hadday a grade tahay waxaan rajaynaynaa inay moogtay capacity-geegu uu yahay iyo standardka laga filayahay inuu moogtahay high level yahay oo jidad ay moogtay malaayiin dollar ku baxayso ay dhisi karto oo muxuu ahaayey guryo moogtahay de waa moogtay real estate waa weyn ay dhisi karto ayaan oo muxuu ahaayey ayaan rajaynaynaa markaa mar hadday sidaa tahay dee inay muxuu ahaayey $2,000 bixiso sanadkii locsan dhisaya oo muxuu ahaayey just paperwork iska haysto oo aan capital lahayn oo keli socdo uu moogtahay ugu jiro shandada ugu jiro ya baaga ku haysta ayaa meeshii imanayo buuxsamaya moogtay so we have to wayna la controla in muxuu ahaayey nidaamka dhismaha waa in la control marka taasi waa noocaas weeye waxaan isleeyahay lacagtaasi waa very reasonable muxuu ahaa lagu qaadi karo waa dabcan xagga engineer xagga ya threshold iskama soo dalban karto midda biyada haysato ayadana waa ilaa 1 million midda labada kun laga qaadayo waa over 1 million unlimited waa so already shirkad shaqaysanayso 500 haysato aan baa laga qaaday marka therefore waa inay levelada kala leeyihiin oo ku talagalku moogtay uu noocaas u yahay xagga engineeraduna waa sidaas oo kale waxaan dhisaynaa board of engineering ayaanu dhisaynaa oo khubaro aan ku ururino oo muxuu ahaa professional association oo engineering waa inuu muxuu ahaayey uu dhismo oo qofka soo gelaya markaa license la siiyo waa sidii dhakhtarka oo kale wey dhakhtarkii oo kale wey haddii aanan loo samaynin muxuu ahaayey control loo samayninna jaantaa rogan bay noqonaysaa moogta haddaan loo samayn marka raalli marka inaad fahamsanaataan unbaa mugta guddiga kala shaqo ku lehaa tiimkiisa aad mahadsantihiin su-aalahan idin weydiinayna waa nooga jawaabteen wixii kale oo dheeraad ku ahaana waa run guddiyaa lahaa laakiin annaga ku dhaweed waqti kale waa u baahan karaa marka aad iyo aad aad mahadsantihiin waan ka mahadcelinaynaa waa noo muuqdaan duruufaha waddanka ka jira hay-ad kastoo aad aragta xanuun waxbay laga dareemayaa baahida iyo waxa kala badan iyo resourceskeena marka aadaan idinku mahadcelinaynaa waa ina fasaxnay